waxaa jirto laba nooc oo dhiikar ah. mid wuxuu ku yimaadaa dhaxal, midna waxaa keena daawooyin qaar qofka inuu qaato ama cuduro. midka ku yimaada dhaxalka badanaa qofka wuxuu ku dhacaa asigoo da-ah. midka kalena wuxuu ku yimaadaa daawooyin qaar. daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka naftroxinka. sidoo kale wuxuu ku yimaada cudurada uu ku yimaadana waxaa ka mid ah cudurada wadna xanuunka iyo kelyo xanuunka. markaana wuxuu ku dhici karaa qofka asigoo da walba jira, kuma xirno da inuu ahaado. qofka dhiikarka qabo waxaa laga baaraa ilaa dhowr baaritaan. number 1 waxaa ka mid ah in laga baaro wadnaha oo laga saaro computer si loo ogaado wadnihiisa in ay caafimaad qabaan iyo in kale. sidoo kale qofka dhiikarka qabo waxaa laga baaraa dhiiga oo lagu ogaado heerka cusbada ku jirto jirkiisa. sidoo kale waxaa jiro baaritaan kale oo laga baaro qofka kelyihiisa oo lagu ogaado in kelyihiisa ay shaqeynayaan iyo in kale. calaamadaha lagu aqoonsado dhiikarka: ma jiro calaamad gaar ah oo lagu aqoonsado dhiikarka, balse waxaa jiro qalab lagu cabiro qofka heerka uu marayo dhiikarkiisa. midkaas ayaa lagu ogaadaa. waxaa ka mid ah calaamooyinka jahwareer, madax xanuun, daal, sanka oo dhiig ka yimaada, neeft in ay ku xiranto qofka bukaanka xilliga hurdada. dhiikarku waxaa looga hortagi karaa joojinta sigaar cabidda, joojinta isticmaalka cusbada badan, joojinta khamro cabista, iyo inuu iska ilaaliyo qofka cayilka badan. bukaanku waxaa la dhihi karaa qaba dhiikarka. intaanan la dhihin dhiikarkaa qabtaa waxaa ka horeys marka hore qofka in la baaro dhiikarkiisa, oo markaa baarno intaanan baarin ka hor qofka markuu noo imaado waa in aan qofka dejinaa oo xaaladiisa oo caadi ka dhignaa normal. qofka markuu noqdo oo wax walwal ah iyo daal badan aanan ka muuqanin, kadib aan ka cabiraynaa dhiikarka. kadib markaa cabirno hadduu dhiikarkiisu ka sare yahay 40% systoligiisa, diastoligiisana hadduu ka sareeyo 90, waxaa dhihi karnaa qofkaas wuxuu qabaa dhiikar. balse waa in aan cabirnaa 1 mar, 2 mar ilaa 3 mar, ama 1 maalin, 2 maalin ilaa 3 maalin, oo aan ogaanaa heerkulkii dhiigiisa heerka uu marayo markuu intaas yahay. diastoligiisa markuu ka badan yahay 90, systoligiisana markuu ka badan yahay 40%, 3 maalin ama ilaa 3 xilli kala duwan markaa cabirno qofka asigoo degan dhiigirkiisa markuu intaas ay noqoto, waxaa dhihi karnaa qofkan wuxuu qabaa dhiikar. inta ka sokayso ma dhihi karno, ama 1 mar aan qofka ka qaadnay dhiikarkiisa oo zaa'id noqday kuma xukmin karno halkaas mar inuu dhiikarkiisu zaa'id yahay, kadibna ma dhihi karno qofkaa dhiikar ayuu qabaa.